10 xeeladood ee aad ku ogaan karto waxa qofka qalbigiisa ku jira. weligaa ma isticmaashay xeelad maskaxeed si aad u hesho waxa aad rabto? waxaa jira xeelado badan oo cilmi nafsi ah iyo talooyin barnaamijyo aad ku ogaan karto waxa qofka qalbigiisa ku jira. haddaba si aad u ogaato xeeladahan, isoo raac oo ila daabo muuqaalkan. nambarka 1, weligaa codsigaaga ha ka bilaabin ereygan ma ii samayn kartaa. waxay ku sababi kartaa qofka kale inuu si muuq leh uu u maleeyo inay tani tahay su'aal aragti ah. tusaale ahaan, ma igu wici kartaa hibil? way fiican tahay inaad si akhlaaq leh wax u weydiisato, laakiin adigoo wax ka raadinayo ha isjilcin oo waxaad dhihi kartaa fadlan igu wac hibil. 2, haddii aad qof la hadlayso oo uu isku dayo inuu iska ilaaliyo inuu ka jawaabo su'aalahaaga, iska jooji wadahadalka adigoo weli indhihiisa si fiican u fiirinayo. waxa uu dareemayaa inaad ahmiyadaada siisay, sidaasna waxaa ku sii soconaya wadahadalka. fursadda kugu jirta waxay tahay waxay ku siinayaan warbixino badan oo ku saabsan waxa aad xiisaynaysid. waxay bilaabayaan inay kuu sheegaan runta. haddii ay been kuu sheegayaan, waxaad runta oga soo saari kartaa aamusnaantaada adigoo indhahooda si fiican u fiirinayo. markii aad qof weydiisanayso su'aal aad rabto jawaabteeda saxda ah, isku day inaad si xeeladaysan u joojiso. markii aad samaynaysid codsigaaga, xaaladan waxaa badanaa adeegsada shaqaalaha maqaayadaha si ay martidooda ugu soo iibsadaan raashin badan, waana mid la tijaabiyey oo shaqaysay. 4, haddii qofku uu runtii ku mashquulsan yahay howl, aandhahana waxay ku dhex jiraan wadahadal taleefan oo arrin xasaasi ah, waxaad u fidin kartaa gacantaada iyagoo wax kastoo ay hayaan gacanta kaa saaraya. waxaad sidaasi uga heli kartaa wax kasta aad u baahan tahay waqti xaadirkaas, xitaa ma ogaan karaan waxa ay ku siiyeen. 5, haddii aad rabto inuu qof wax kuu sameeyo, si waadix ah ugu sheeg sida ay ugu badan tahay inaysan xitaa u awoodi karin inay wax u qabtaan. dadka badankoodu way isku dayi doonaan runtii inay si adag u caddeeyaan inuusan qofkan wax u qaban karin. waxay markiiba ka shakin doonaan awoodahooda oo waxay isku dayi doonaan inay kuu qabtaan oo ay ku tusiyaan awoodooda. haddii aad qof wada hadlaysaan 10 daqiiqo ee ugu horeysa, adeegso ereyo gaagaaban. way ku filan tahay tani. qofka waxay ku samaynaysaa hadalladaada inay ku noqdaan la yaab, isla markaana ahmiyadooda dhan ayay ku siinayaan, aad ayna u xiisaynayaan hadalkaaga. mararka qaarkood waxay isku dayayaan inay u dhaqmaan sidaada oo kale. 7, markii aad saacadaada ku xirato inay ku toosiso aroortii waqti hore, fariiso 2 feed samey oo ku qayli haa sida qof ciyaaryahan kubadda cagta ah oo hadda gool dhaliyay. waxay u eg tahay wax la yaab leh, laakiin runtii waxay kaa caawinaysaa inaad si fudud ooga kacdo sariirta adigoo dareemaya qabow. nambarka 8, haddii uu kooxdaada ku jiro qof caajis badan oo howl dhan aan qabanayn, ha dhihin qofka sameey midan. waxaa ka fudud inaad dhahdo ka bilow midan. waxay u muuqan doontaa inuu si tartiib ah u qaban doono, laakiin waxay ka bilaabayaan waxyaabaha yaryarka ah. markii ay qabtaan midda koowaad, ku dheh wax fiican ayaad samaysay. waxay sidaas oo dhan ku qabanayaan hawshoodii oo dhan. 9, haddii aad dadka ka hor hadli rabtid, isku day inaad soo qaadato biyo adigoo ka soo qaadaya inaad u socoto meel saxare ah. hadalka istaaji, kadibna kabo wax yar oo biyo ah. intii aad biyaha cabaysid, waxaad fursad u haysataa inaad hadalladaada isku sii aad-aadsato. kuwa fadhiya hortaada waxba kama fahmayaan sirtan. 10, haddii aad aragto qof indhahaaga fiirinayo, si aad u wareeriso qofka, fiiri kabihiisa. indhahaaga wax badan ayaa laga akhrisan karaa. ugu dambayn, haddii aad wax ka faa'iiday muuqaalka like saar. mahadsanid.